السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وضع السلامي إن بعد السلام waxaan rabnaa haddana inaan sameyno fiilan intaan fiilan kala isla gaarin. Halkaan waa meesha imaajada aan isticmaali doono, meesha aad kasoo dejisanaysid. Halkaan kasoo dejiso Cisco routers, halkaan kasoo dejiso GNS3 oo softwareka aan isticmaalayo, iyo nagala soo xiriir waa Facebook. Video kastoo aan soo dhigno qaybtiisa hoose haddaa fiirisid meesha Somali technology hoosteeda ku qoran tahay haddaan dhaho show more haddaad taabatid marka video ay fiirsanayso halkaas laba goorba kusoo bixida show more haddaad taabatid meesha u hooseyso softwareka isticmaalna waad soo dejisan kartaa, routerada isticmaalna waad soo dejisan kartaa. Okay, waxaan bilaabeynaa cashirkii oo ahay VLAN saan u sameynaa. Okay, GNS3 normal markuu soo kaco intaas soo bixayso waa taqaanaa taas. هذا install كذا سميسو على جوجو سيسس انت تقوصه بحيث VLAN يسس كذا different VLAN نقص من دونا. اوكي halkan waxaa yaal switch layer 3 la dhaho, halkan waxaa yaal layer 2 switch caadi ah. kan waa layer 3 laakiin waxaan u isticmaali doonaa maanta layer 2 ahaan. kan waa switch kale oo layer 2 caadi ah, kan waa kii normal ataqaanin waay, laakiin kan waa layer 3. marka waxaan rabaa layer 2 inaan isticmaalo, kan ka saar dilida layer 3 ga inaan isticmaalo oo layer 2 ahaan u isticmaalo iyo router. iyo waxaan u baahanahay PC labo PC saddex kale. Okay, switch kan layer 3 ga aan u isticmaalayo iyo router kan imaajada hoos meesha aad kasoo dejisaan kuna kasoo dejisan kartaan. switch kan marka aad soo gelinaysid bes wax yar wuxuu kaga gedisan yahay kii routerka caadiga tama korkiisa way maaw marka soo gelisid sidoo kale korkiisa leedahay configure. marka aad aadid slot kan waa inaad ka dhigtaa 16 slotkiisa waa inaad ka dhigtaa 16 caadi u shaqeynaya markaas aydi sidii router ahaan u shaqeynaya switch ahaan u shaqeynaya router ahaan u shaqeynaya labadaba. Okay, marka connected PC waa ka soo bilaabo switch ka. Okay, switch kan maadaama uu layer 3 sidii routerka oo kale u shaqeynayo boortaan u koreeyo faasantana 0/0 waa normal router. switch ma naqanayo faasantana 0/1 ma naqanayo switch. waxaa lagu soo daray waa 16 boortaan hore u soo sheegay configure. marka korkiisa tagay soo arkayno waa 0 ka soo bilaab ilaa 15 waa isticmaali kartaa markaas switch ahaan oo isticmaali kartaa. Okay, 1/0 kana على 1/1 kana على kana router kii 1/13 وفيرنها. Okay, كيبلان show cables ده 1/0 انتو naga maray 1/1 انتو maray 1/2 انتو maray 1/3 halkaas oo maray startup kulligooda hal mar soo shid waa halkan ka markaad taabatid waa resolution kulligooda. waxaan kasoo bilaabeynaa marka switch ka maadaama aan rabno inaan sameyno different VLAN. Okay, textigi kasoo qabo halkan waxaa leenahay VLAN 10 misaal. halkan waxaa dhahdaa VLAN 20 iska daa baslo. halkan waxaan leenahay VLAN 10. kan iyo kan isku mid ah karnano kan ama waxaa dhahdaa VLAN 30 dasna saddex VLAN oo kala gedisan oo haddana saddex ay bedelaso kala gedisan saddex subnet oo kala gedisan inaan u sameyno isbeddelay karaan waa muhiimada.
halkaan marka halkaan godna loo soo isticmaalo, halkaan god in lasoo siiyo 3 IP address. Okay, halkaas waxaa ku qoraynaa markaan halkaas cable maadaama 3 VLAN ay yihiin 3 IP address ay lahaanayaan, halkaan god waa inay yani gateway uu noqdaa 3 IP address 3 gateway waa inuu helaa. waxaa dhahdaa router on stick. Okay, marka switchka waxaan leedahay marka console switchkan kasoo bilaabay nagala. configure terminal mataqaanaa taas fast internet 1.0. okay, no exit maadaama uu yahay level 3 switch oo level 3 sida routerka oo kale u shaqeynaya, maadaama uu yahay kii kale normalka level 2 gahay waxyaabo yar oo ka kala gedisan yahay. kan kale sida loo sameynayo wax yar oo kala gedisan yahay. Hadda config intaan la tagin waa in VLAN halkaan laga sameeyaa. kan VLAN database la leeyahay, and then VLAN 10 oo kaas PC1 ka aan ugu talagalnay. haddaan dhahdo name magac ku dar, haddaan dhahdo IT. okay, haddana waxaan dhahnaa VLAN 20 name waxaan leenahay content waa iska soo gaabinaynaa. kan saddexaad maxaan u sameynay VLAN oo ahaa 30 oo 20 30. okay, VLAN 30 name security. okay, 3 VLAN waa intaas soo sameynay. marka 3daas VLAN waa inaan soo gelinaa interfacesan. marka configure terminal fast internet 1/0 interface fast internet 1/0 switch mode access waa la dhahdaa switch access VLAN 10 interface fast internet 1/1 switch mode access switch access VLAN 20 1/1 waa kan PC2 gaadayo exit. okay, interface fast internet 1/2 switch mode access switch access VLAN 30 waa 3 VLAN soo sameynay 10 20 30 soo sameynay. okay, waxaan leenahay exit. kan routerka aaday marka waa ku gedisan yahay interface fast internet 1/3 waxaa la leeyahay kaas marka switch mode trunk switch wuxuu ku leeyahay marka halkan pop-up yar ku siinaa wuxuu ku leeyahay trunk port laga soo dhigay laakiin become encapsulation oo dot 1q in lasoo sameeyo waay switch trunk alada encapsulation dot kaas kusoo dar marka. okay, and waa dhamaaday safe aan leenahay kaas switch waa kasoo dhamaaday. okay, waxaan leenahay show VLAN switch normal layer 2 switch waxaa leedahay show VLAN caadi u shaqeynaya, laakiin kan waana ku dartaa switch maadaama uu router ahaa switch ayna ku dartaa sida. okay, markaas aad adeed marka halkaas waxaa ku jirto 30 waa fast internet 1/0 halkaas oo gashay oo VLAN 30
waa kan waa magaciisa security. Accountant waxaa ku jira VLAN 20 ah n active 1/1 waa kan waa accountant. IT-gana waa 1/0 waa PC1 ka VLAN 10 ah. VLAN-ka magaciisa halkaan ku safan yahay hadaa fiiriso halkaan waa VLAN, hoosteed waa native waa 1, kuwa kalena waa waxaan soo sameynay saddexdan kale. Okay, waxaan kaloo sameynay trunk soo maahan show interface trunk hadaa raadidasna wuxuu ku siinayaa waxaa trunk ah 1/3 on trunk waa kasoo ku siinayaa. hadaa dhahdid show IP interface brief godadka kale oo dhan warshadana ku siinayaa wixii ababka ahaa 16 kulooda ku siinayaa oo wada down protocol. Okay, waxaan leenahay router 1 waa in la tagaa so router on stick waa in la soo sameeyaa markaa. Okay, show IP interface brief hadaa dhahdid maxaa ku jiro oo wada down. aniga waxaan rabaa halkaan god config interface percentage 0/0 no shutdown. marka halkan waxba lama gelinayo ilan router on stick waa inaan sameynaa. Okay, interface meelayo exit data exit interface fast internet 0/0.10 leeyahay marka oo VLAN 10 ka. marka soo dhahdid marka waxaa leedahay cancellation q soo xasuusano 10 oo ah VLAN 10 ku aadaya encapsulation kaas. Okay, IP address 192.168.1.255.255.255.0 sababta 10 kan u doortay hadda IP address kan maadaama VLAN 10 yahay aan iskaga inuu ku soo xasuusto ugu talagalay. Okay, no shut horaa loo soo dhahay exit interface fast internet 0/0.20 waa VLAN 20 ah waa same interface halka interface kaliya oo 0/0 gii ahaa dhexdiisa aan rabaa 3 IP address in la geliyo oo router on stick lagu sameeyo yani dhowr boort laga dhex sameeyo waa laga dhex sameyn karaa. IP address 192.168.255.255.128/25 aan sameynay hadda wuxuu ku leeyahay sub interface already configured part encapsulation configure sub interface only allowed if that sub interface. Okay, IP address. Okay, sababta encapsulation kana sameynin 20. Okay, exit interface fast internet 0/0.30 encapsulation .30 IP address 192.168.30.1 255.255.255. Okay, 192/26 isna WR. marka waxaa laga show IP interface brief hadaa dhahdo wuxuu ku siinayaa fast internet 0/0 oo wada up ah ku siinayaa waa waxaa up ah marka 0/0 waa up laakiin IP address ma lahan 0/0.10 oo VLAN 10 ah 10.1 ku jiro VLAN 20 na 20.1 ku jiro VLAN 30 na 30.1 ku jiro waa hal interface ah waxaa laga dhigay afar xabo router on stick oo intaas wax la sheegay badan router on stick da maqshan
Okay, PC1 kasoo bilaab console IP 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 at 192.168.10.2/24 space 192.168.10.1. Again, hello pin 192.168.10.1. عادي وشغالة بيلانكاس. Okay, BC2 email console IP 192.168.20.2/25 or 26 25 192.168.20.1. Okay, 192.168.20.1. kaas maxaa uu shaqeeyaa? No more troubleshoot, I think. PC3 so ID 192.168.30.2/25 also 26 so habrana 192.168.30.1. عادي وشغلنا مركان كنا. اوكي عشر كان وصول سيمبل انت سوق وجهي وفيلان سدح اي بيدرس halkan ku jirto هاوي qoraalkay 192.168.30.0/26 192.168.20.0/25 192.168.10.0/24 sababtoo ah u sameeyay saddex IP address oo kala gedisan iyo saddex fiilan yani fiilanka IP addresska la rabo in la gashan karo oo adeeba bedelan kartida ugu talagalay. had waa VLAN 10 VLAN 10 oo IP address 10 ku jiro oo /24 sanad maahan halkan gudaha laga soo sameeyay isla VLAN 20 adana /25 ah isku samlad ma waa kala samlad VLAN kana isku mid ma ka aha godkaan laga soo sameeyay VLAN adana /26 oo VLAN 30 ah isla halkan god saddexdood halkan god laga maamulaa router on 6 asal tahay aw switch wuxuu sameeyay oo level 3 ga lagu soo dhigan wuxuu sameeyay hada fiirsid godkan wuxuu ka dhigaa VLAN 10 ku geena kan wuxuu ku geena VLAN 20 ku geena kan wuxuu ku geena VLAN 30 ku geena kan wuxuu ka dhigaa trunk oo ka dhigaa godadkiisa marka waa kaasa hada fiirsid halkan mouse ko saari kari hada fiirsid fast internet 1/0 2 BC1 ku qoran internetada port internet ahaan loo isticmaalo oo kuleeyahay marka waa kaas casharka intaan nooga yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. oo VLAN ku saabsan VLAN oo switch level 3 la isticmaalayo level 2 gana waa la isticmaali karaa bas wuxuu ka gedisan yahay hada halkan soo dhigno away level 2 ga wuxuu ka gedisan yahay meesha halkan aan ka sameeynay godadka aan
halkaas aad ka dhahay manual ahaan uu qoraayo halkan mouse-ka isticmaalaysa waa kan VLAN-kii access waxaas uu leeyahay boorta harto ku qoranaysa hadaad port 1 aad hadid VLAN 10 leedahay halkaas aytan access leedahay aad leedahay hadi ugu soo diraya ugu soo diraya tuuda maadaama meesha police leeyahay wadada 0 bile 0 waxaa dhahdaa 1 taadid access meesha laga dhahayo waxaa dhahdaa trunk aad u sameynaa kan labaad haddaad dhahdid board 2 aad dhahdid VLAN 10 meeshaas trunka creation access aad ka dhahdid aad u sameynaa kan waa so easy wala sameyn karaa laakiin waxaa ka fiican configuration-ka ilaan wixii live ah la kortay karaa kan waa mouse ahaan waa wax la sameynaa kana live ah marka عشان كان نوجد هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.